والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحونا سيدو الشيغي maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto. madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyay xilka dukumeentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay. طبعا وترتيب أيان دب وضع آخر دونا وضع فيرن دونا وحي معلومات هو أن فهم وين طبعا ورالكي واجوها دبا ولا نقد دونا وويدين دونا لكن فايلش عصورن ما أنت وكقاعدة مدحوينها سيدا إذا بدأ أمنية خاصة ورن إذا بدأ إرتري جرى مدرنا وينجا مقنعين وأنا ويرشيني وكشقين الناس إذا ورقصية بدن إن دلك أصور نقدان oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kale oo dhan deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhamaato kuna dhamaan karto waana ka shaqeynaynaa haddii aan la yiraahdo inay ku dhamaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waxaan intaas kadib waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday Soomaaliyeed waana la jooga meel kasta uu joogo ilaahay idankiisa waana la tasha doonaa waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa hadii aan la yiraahdo xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay madaxweynuhu dal ha joogo dibad ha joogo inuu xoogaal dalkan u noqdo wixii qadaayad oo waaweyn oo jirana way aragnimo iyo xoogaalnimo dheer maadaama uu leeyahay wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas hadii aan la yiraahdo sida uu madaxweynuhu u sheegay aniguna waa codsanaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halka ka taageeradiina idin weydiisanaya kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanaya sidaad hore igu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iga tagay waa ku mahadsan yahay howlaha noo taalo howlaha waaweyn faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlayo dhan haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl hadda qof kaligiis iyo laba iyo lagu dhamaystirkeeda lagu qofku mas'uulka wax waa bilaabi karaa ra'yi waa curin karaa waa keeni karaa laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago madaxweynaha kaliya maaha dawladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan aad iyo aad ayaan mar kale ummadda Soomaaliyeed ugu mahad celinaya madaxweynaha noo aadan ugu mahad celinaya madaxweynaha ma santahay Allah ku dhaw ma santahay